bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan dawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan halkani waa shabakada wararka ee shacabka TV akhbaraadka xiisaha badan ee xiliga kan aan idin hayno waxa ugu daroon mid ka mid ah dawladaha ugu waaweyn qaaradda Yurub oo hub casri ah guddoonsiisay militariga Soomaaliya markab ku soo wajan xeebaha dalka iyo dawladda hubkaasi ku wareejisay ciidanka Soomaaliyeed intaba waxaad ku daawan doontaan warkeena qubadda ciidanka Soomaaliyeed oo maanta laga dareemayo isbedel aad u weyn iyo cabsi ku furan dalalka geeska Afrika gaar ahaan kuwa dariska la Soomaaliya waxaan weegi doonaa awoodda ciidan ee Soomaaliya xilligan ka jirta iyo dadaalka ay ku bixisay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxyaabaha kale aan ku eegi doono warkeena waxa ugu daroon ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo wiiqay maleeshiyada al-shabaab kadib howlgalo baaxad leh oo ay ka fuliyeen gobolada dhexe ee dalka wararkii ugu dambeeyay ee goobaha ay gacanta ku dhigeen ciidamada dawladda Soomaaliya ayaan idin soo gudbin doonaa ummadda Soomaaliyeed si ay qaran mid u noqdaan waa in ay ku dadaalaan dawladnimada iyo sidoo kale iskaashiga waa faalo aan ku qaada dhigi doono dawladnimada iyo sidoo kale wacyigelin aan ugu sameyn doono faaladeena shacabka Soomaaliyeed qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan warka meel kastoo aad dunida ka joogtaan waxaan u dileenahay kula wacan wanaagsan daawadayaal halkani waa shabakada wararka sugan ee shacabka TV doodayadu waxay ku saabsan tahay ra'yigiina saliimka ku cabiri kartaan dhowrka daqiiqada ee fooda nagu soo aadan isbedel xagga ciidan ayaa maanta laga dareemaya Soomaaliya taasi oo cabsi ku beertay dalalka dariska la Soomaaliya dadaalka ay dawladda Soomaaliyeed ku bixisay dhismaha ciidanka waa qodobkayga ee dooda shacabka TV subscribe hadin ahado muuqaalkana like inoo saara imankana aynu gudagalno qodobadii wararkayaga oo faahfaahsan Soomaaliya ayaa maanta la qiraya in ay yeelatay awood ciidan oo aan horay uga jirin gudaha dalka Soomaaliya taasi oo yidadilo weyn ku beertay shacabka Soomaaliyeed kuwooda ku sugan gudaha dalka iyo dalalka caalamka waxa sii kordhaysa hadalheynta dib u dhiska ku socda ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya oo farqi weyn laga dareemayo 4 sanadood ka hor iyo maanta Soomaaliya waxa ka jirtay dhowr iyo 20 sano ee la soo dhaafay baahi dhanka ciidan xumida ah iyadoo aysan jirin dadaal dib u dhis ciidan in xuquuqda ciidanka aad loo ilaaliyo dawladda Soomaaliya ayaa la xaqiijiyay shaqo weyn inay ka qabatay ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya oo ay ugu horeysay in lagu sameeyay dib u diiwaangelin ciidanka si loo kala ogaado ciidamada shaqeeya ee waajibka qarankooda ka saaran gutaa kana soo baxa iyo kuwa aanay shaqeynin shaqada kale ay dawladda Soomaaliya ka qabatay ciidanka ayaa waxa kamid ah in la soo saaro saraakiil tayo leh oo u badan dhalinyaro iyadoo sidoo kale dawladda ay ka faa'iideysanayso maskaxda saraakiishii horay u soo shaqeysay balse howlgabka ah ee aan markaasi si wacan u shaqeyn kareenin halka kuwa shaqeyn karana ay dawladdu howlgelisay dawladda federaalka Soomaaliya markii ugu horeysayba sanadihii 2017 2018 waxa ay la fariisatay oo heshiis ay la qaadatay dalalka saaxiibka la Soomaaliya labada qodob ee ugu weyn ay ka dalbatana waxay kala ahaayeen waa midda koobaad in Soomaaliya lagala shaqeeyo dib u dhiska ciidankeeda oo dawladdu ay diyaar u tahay inay dib u habeen ku samayso qodobka labaadna wuxuu ahaa in dawladda lagala shaqeeyo hagaajinta nidaamka maamulka maaliyadda lana siiyo dawladda dhaqaale ay ku howlgasho qodobadaasina waxay imanka u muuqdaan ama ay noqdeen kuwa ku guuleystay xilleerayaal dhanka ammaanka ciidanka iyo hubka ayaa sheegaya marka dib loo malacsado sanadii 2014 ama 2015 wixii ka sii horeeyay iyo 2016 waxa ka soo bilowda ilaa 2021 oo maanta la joogo isbedel weyn in laga dareemayo ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya sanadii 2014 2015 ilaa 2016 dawladda Turkiga oo iyadu doorka ugu weyn ka qaadatay dib u dhiska ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xilligaasi soo bilowday tababarada ay gudaha dalkeeda iyo dalka Soomaaliyaba ku siinayso ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya xilligaasi oo la howlgeliyay xerada Turkizom ee magaalada Muqdisho laakiin shaqada xilligaasi ma ahayn mid dardar ku socotay oo gaabis fara badan ayaa jiray heshiiskii dhacay 2017 ee madaxweyne Farmaajo uu la fariisay dalalka saaxiibka la Soomaaliya ayaa keenay isbedelkan taasi oo haatan laga dareemayo ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya wuxuuna madaxweynuhu u sheegay xilligaasi dalalka caalamka dalka aanay awood u lahayn in Soomaaliya uu ka gacan siiyo tababarada ciidanka qalabka sida in aan loo baahnayn madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa marar badan fariisama ka dhigtay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka halkaas oo dib u dhisna lagu sameeyay sidoo kalena uu madaxweynuhu ka waday barnaamijka dib u habeynta gacantiisa ayuuna uga qayb qaatay in ciidanka dib loo diiwaan geliyo taasi oo ahayd howl aad u adag culays fara badan dawladdu ay kala kulantay maanta dawladda Soomaaliya waa ay ka warhaysaa askari waliba oo ka tirsan qaybaha ciidanka
haddii ay tahay qeybaha militariga, haddii ay tahay qeybaha booliiska, haddii ay tahay qeybaha ciidanka asluubta, iyo haddii ay yihiin qeybaha kale ciidanka cirka iyo kuwa badda Soomaaliya iyo kuwa kale ee nabad sugidda. taasina waxay ku imaaday dadaalkii faraha badnaa ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu horseedka ka ahaa. waxaana la xasuustaa hadal taariikhda u galay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dadka Soomaaliyeed intooda badan aad ay u hadalhayaan, kaasi oo ku dhahay ciidanka qalabka sida waxaa tihiin caruurteeda ama wiilasheeda ee sidaa ogaada, ciddii isbaara dhigatana caruurteeda kama mid aha. waxaana hadalkaasi ay warbaahintu la barbar dhigtay hadal lagu xasuusto Xasan Sheekh Maxamuud, kaasi oo ahaa askariga aanay $100 qaadan karin waa in guriga hooyadii iska taga oo ka dhex baxa ciidanka. hadalkaasina Xasan Sheekh wuxuu ku keenay niyad jab weyn iyo burbur ku yimid ciidanka qalabka sida oo Soomaaliya oo waqtigiisa aanay dareel haysan, haddana tabartoodii aad u yareed in ay si kala fardhoomaan, iyadoo la xasuusto sida xuquuqdooda uu ugu ciyaaray Xasan Sheekh Maxamuud ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. haddaba hadalkii madaxweyne Farmaajo ee isaguna ku dhiirigeliyay ciidanka ayaa keentay in moralka ciidamada qalabka sida ay aad u dhisto, isla markaana la helo dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed oo isugu jira wiilal iyo gabdho oo ka mid noqda ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya. dowladda Soomaaliya waxay baabiisay dhaqan xumi ka dhex jirtay ciidanka, sida askari ka tirsan booliiska inuu haddana yahay mid ka tirsan militariga oo labada dhinacba lacag uu ku qaadan jiray. dhaqan xumada kale ee dowladda Soomaaliya baabiisay waxaa ka mid ahaa sarkaal ciidan oo ciidankii uu hogaaminayay ka been sheego isagoo hayana urur ama guuto 200 ama 100 ah inuu yiraahdo 2,000 oo askari ayaan maamulaa oo lacagta sida uu kaga soo qaadan jiray dowladda. waxaana sidoo kale dowladdu baabiisay dhaqan xumaa oo ahaa in ciidanka qalabka sida lacagtooda gacmo fara badan ay marto, taasina ay keento musuqmaasuq, askari mushaarkiisa in laga inkiro oo uu heli waayo isagoo qaranka u adeegayo. halkaasina ay ka dhalan jirtay in ciidanka isbaara dhigtaan oo ay niyad jabaan. waxaana dowladdu samaysay waxa loo yaqaan account to account oo ah in askariga Soomaaliyeed markaasi xuquuqdiisa aanay lagu ciyaarin, sidoo kalena la diiwaangeliyay dhammaan askarta oo mid waliba akoonkiisa ama mobilkiisa ay ugu dhacayso lacagta bil waliba uu ka qaato qaranka Soomaaliyeed. intaasi waxaa sii dheer sar u qaadidda xuquuqda ciidanka oo mushaaraadka ugu horeyso oo iminka la gaarsiiyey lacag ku dhow $250, iyadoo madaxweynuhu sheegay ilaa iyo $500 ama wax ka badan in la gaarsiin doono mushaaraadka ciidanka. saraakiisha ayaa iyaguna dhaqankoodii la saxay, xuquuqdoodiina sare loogu qaaday. waxaana taasi meesha ka saartay isnacaybkii ka dhex jiray shacabka iyo ciidanka, kalsooni daradii ka dhex taagneed ciidanka iyo madaxdooda, iyo in xukuumadduba ay la socoto xaaladda ciidanka oo ay ku sugan yihiin. iminka ciidamada Soomaaliyeed qaybahooda kala gedisan waxay noqdeen kuwa ugu hadalheynta badan, oo magaca ciidanka Soomaaliyeed ayaa noqday mid xitaa warbaahinta caalamku ay soo bandhigaan. qorshaha haatan ee geedi socodka dhismaha ciidanka qalabka sida haddii uu sidan ku sii socdo waxaa la wada qirayaa in Soomaaliya si degdeg ah ay ugu soo dhex muuqanayso geeska Afrika, qubaddii ciidan ee Soomaaliyana soo laabanayso. laakiin rag ayaa doonaya in dadaalkaasi ay xagal daaciyaan, iyagoo xitaa ciidamada mararka qaar niyad jabiya kuna yiraahdo waa ciidan maleeshiyaad ah. waana nasiib daro ay muddooyinkii ugu dambeeyey la yimaadeen kooxaha sheeganaya siyaasiyiinta ee u xiiso qaba in mar kale dib u dhaca Soomaaliya ay ka shaqeeyaan, iyagoo aan bulshada ka xishoonaynin, sidoo kalena meel iska dhiga wax la yiraahdo alka cabsiga. wahagaag akhiray intaasna waxa ku koobnaa warbixintii la xiriirtay ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya oo maanta hadal heentooda cirka gashay oo aad u soo jiitay indhaha shacabka Soomaaliyeed iyo indhaha caalamka intuba. dhinaca kale aynu eegno dowladda Talyaaniga ayaa faahfaahin waxa ay ka bixisay markab ka soo shareecday xeebaha dalka Talyaaniga kaasi oo ku soo wajahan biyaha Soomaaliya, isla markaana dowladda federaalka ee Soomaaliya u wada deeq ay ugu talagashay oo ay ugu horeeyaan gaadiidka dagaalka oo ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya iyo sahanad kale oo ciidan. markabkan ay faahfaahinta ka bixisay dowladda Talyaaniga oo la filayo maalmaha soo aadan inuu ku soo xirtay biyaha Soomaaliya ayaa wada deeq gaadiid ah oo ah balan dowladda Talyaaniga ay ka qaaday dhawaan dowladda federaalka ee Soomaaliya. xaalka ciidanka Soomaaliya in dowladda Talyaaniga ay diyaar u tahay in ay daboosho dhammaan baahiyaha ka jira ciidanka militariga dowladda federaalka ee Soomaaliya. dowladda Talyaaniga waa dowlad qubad leh oo ka mid ah dalalka Yurub, waxa ayna inta badan gacan ka geysataa dib u soo kabashada Soomaaliya. markabka ayaa deeqda uu sida dowladda federaalka Soomaaliya marka uu soo gaarsiiyo
dalka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa la filayaa in dowladda Soomaaliya dhankeeda faahfaahin inay ka bixiso marka ay guddoonto deeqda kaga timid dhinaca dowladda Talyaaniga. ugu dambeyntii haddii aynu eegno warbixin aan ugu talagalnay in ummadda Soomaaliyeed aan colaadda uga digno. colaadi sida loo ogyahay wiil kuma dhashay wiil baa ku dhinta. qofka Soomaaliyeed ee caqliga leh isla markaana ka caafimaad qaba qabyaaladda garaadkiisana uu aad u sareeyo waa uu dareemi karaa dhibaatadii Soomaaliya ee ka soo gudubtay wax u dhigno ama u dhow inaysan Soomaaliya xamili kareenin waqtigan inay dib ugu laabato. Soomaaliya sida loo ogyahay maanta waxaa laga dareemayaa horumar ganacsi mid dowladeed iyo ilbaxnimo intuba waxaana ay Soomaaliya ka soo kabanaysaa guud ahaan gobolada dalka iyo caasimaduba colaadihii laga soo gudbay ee laga dhaxlay burburkii dowladii dhexe ee militariga. haddaba maanta waxa la isku haya ma ahan qabaa'ilo ishaya ama qabaa'il iyo dowladda Soomaaliyeed oo iska hor yimid balse waxa ishaya waa dana siyaasadeed oo iska soo horjeeda. sidaa daraadeed waa u nasiib daro ummadda Soomaaliyeed inay dib ugu laataan barakac dagaalo sokeeye dhiig daata iyo dowladnimada Soomaaliya oo la wiiqa. ummadda Soomaaliyeed waa inuu caqligooda shaqeeyaa waa in loo wada istaagaa nabad iyadoo dan gaar ay ka muhiimsan tahay danta guud ay ummadda oo idil ka dhaxaysa. Muqdisho oo burburta waxay ka dhigan tahay guud ahaan Soomaaliya oo burburta. haddii magaalada Muqdisho ay hagaagtana ee caasimada dalka hooyo macnaheedu wuxuu ka dhigan yahay in Soomaaliya ay hagaagto. sidoo kale waa in meel looga soo wada jeestaa kuwa raba inay si gaar ah isku leeysiiyaan magaalada Muqdisho. ummadda Soomaaliyeedna cuqdad ku beeraya iyaga oo ka dhaadhicinaya Muqdisho inay tahay goob cid gaar ah ay leeyihiin. maxaa yeelay kuwa ka soo horjeeda dowladda Soomaaliya fikirkooda ah in magaalada Muqdisho in iyagu ay leeyihiin ay keeni karto haddana cuqdad kale ummadda Soomaaliyeed ay qaadaan xilli la ogyahay in Soomaalida maanta ay kala qaybsan yihiin oo qolooyinka qaarna rabaan Soomaaliya inteeda kale inay ka go'aan. haddiise ay ummadda ugu sheekeeyaan magaalada Muqdisho inaga ayaa si gaar u leh maxay macnaheedu noqon kartaa. halkaasi waxaa ka muuqan karta midnimo iyo wadajir iyo qaran Soomaaliyeed ducagiisa ku istaago. jawaabtaasi waa mid uu garan karo muwaadin walba oo Soomaaliyeed ee daawanaya warbixinteenan. Soomaaliya Soomaali baa leh colaadna wiil kuma dhashay wiil baa ku dhinta. nin colaad soo arkayna dib uma jeclaada kumana degdego ee ummadda Soomaaliyeed waa inay u istaagaan nabadda iyo xasiloonida dalka. guud ahaan warkii aad kala socoteen daawadayaal shabakada shacabka TV waa inaga inta waad ku mahadsantihiin daawashada wararkeena. qaybaha kale ee wararka ayaa inoo balanna nabadgelyo.